dhaqaalo intee dhan ayaa Mareykanka kaga baxay Afghanistan 20kii sano ee u dambeeyay kadib bixitaankii ciidamada shisheeye ee dalka Afghanistan iyo qabashada Taliban. Warbixintan waxaan ku eegaynaa qarashka ay Mareykanka iyo xulafadiisa NATO uga baxay howlgalka military ee dalka ka socday 20kii sano ee la soo dhaafay iyo inta ay gaarsiisan yihiin ciidamada Mareykanka u diray Afghanistan iyo qasaarihii ka dhashay dagaalkaas. daawade si aad warbixintan iyo warbixino kale aad u xiiso badan uga bogato fadlan subscribe saar oo ku soo bir YouTube-keena Warsan Media Group siina share garee si uu gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo adiga oo kale ah. mahadsanid daawade. Mareykanka wuxuu ku duulay Afghanistan bishii October 2001 si uu meesha uga saaro ururka Taliban oo gabaad siinayay hogaamiyihii Al-Qaacida ee Osama bin Laden iyo hogaamiyaal kale oo la xiriiray isaga. tirada ciidamada Mareykanka ayaa kortay sanadihii xigtay iyadoo ay xukuumadda Washington balaayiin dollar ku bixisay la dagaalanka Taliban waxaana ay tiradoodu gaartay 110,000 oo askari sanadkii 2011. sanadkii la soo dhaafay 400 oo ciidamo ah ayaa Mareykanka kaga sugnaa dagaalkaas. dalal kale oo ay ka mid yihiin kuwa xubnaha ka ah NATO ayaa ka qayb qaatay duulaankaas Afghanistan lagu qaaday. balse Mareykanka ayaa ahaa kan ciidamada ugu badan ay ka joogeen Afghanistan. NATO ayaa bishii December 2014 si rasmi ah u soo afjartay howlgalkeeda, balse waxaa dagaalkaas ka sii joogay 13,000 oo askari oo inta badan tababar siiya ciidamada Afghanistan qaybna ka qaata howlaha argagixisada la dagaalanka. Mareykanka waxaa sidoo kale Afghanistan ka joogay tiro ka mid ah shirkado qandaraas lagu siiyay arrimaha amniga dabayaaqadii sanadkii 2020 in ka badan 7,800 oo qof oo Amerikaan ah ayaa ku sugnaa dagaalkaas sida lagu xusay daraasad uu sameeyay Congress-ka. intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2012 Mareykanka ciidamadiisa kaga sugnaa Afghanistan waxay gaarayeen in ka badan 100,000 xilligaas oo ay dhaqaalaha ku baxayay uu gaarayay $100 bilyan sanadkiiba sida ay sheegtay dawladda Mareykanka. marka ciidamada Mareykanka ay joojiyeen howlgalka ka dhanka ah Taliban oo ay u soo jeesteen tababarka ciidamada Afghanistan waxaa hoos u dhacay qarashkii ku bixi jiray. sanadkii 2018 dhaqaalaha ku baxay howlgalka uu ka waday Afghanistan wuxuu hoos uga dhacay $45 bilyan sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. sida laga soo xigtay waaxda gaashaandhigga Mareykanka guud ahaan dhaqaalaha ku baxay Afghanistan laga bilaabo bishii October 2001 ilaa September 2019 wuxuu gaarayaa $778 bilyan. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo hay'adda USA iyo laamaha kale ee dawladda waxay mashaariicda dib u dhiska dalkaas ku bixiyeen $44 bilyan. sida laga soo xigtay daraasad sanadkii 2019 ay sameeyeen jaamacadda Brown University oo si dhow ula socotay dhaqaalaha ku baxay howlgalka Afghanistan iyo Pakistan waxaa Mareykanka ka baxay dhaqaale dhan $978 bilyan. inta badan dhaqaalahaas wuxuu ku baxay howlgalka ka dhanka ah Taliban iyo tirida baahida ciidamada Mareykanka. ciidamada Mareykanka waxay ka qayb qaateen dib u dhiska Afghanistan. xogta rasmiga ah waxay muujinaysaa tan iyo sanadkii 2002 in Mareykanka uu mashaariicda dib u dhiska dalkaas ku isticmaalay $143.27 bilyan. in ka badan kala bar $88.32 bilyan ayaa loo isticmaalay maalgelinta ciidamada amniga iyo militariga Afghanistan. ku dhawaad $36 bilyan ayaa loo adeegsaday barnaamijyada maamulka iyo horumarinta halka dhaqaale yar loo qoondeeyay la dagaalanka daroogada iyo arrimaha gargaarka sida cuntada, dariska, caafimaadka, mushaaraadka ciidamada ammaanka. Afghanistan ayaa qasaaro xoogan kala kulmay dagaalka. qayb ka mid ah lacagaha ayaa la musuqmaasuqay. warbixin uu soo saaray Congress-ka Mareykanka bishii October 2020 ayaa lagu sheegay in waaxda qaabilsan la socodka howlaha gargaarka Afghanistan ay soo gudbisay in ku dhawaad $19 bilyan la lunsaday intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2019. tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday Afghanistan 2001 ciidamada Mareykanka waxaa ka dhintay in ka badan 2,300 oo askari halka uu dhaawac soo gaaray ku dhawaad 20,660 askari oo UK ah. waxaa dagaalka uga dhintay 450 askari. sidoo kale waxaa dagaalka ku dhintay qaar badan oo ka mid ah shacabka iyo ciidamada Afghanistan. madaxweyne Ashraf Ghani wuxuu sanadkii 2019 sheegay in ka badan 45,000 oo ka mid ah ciidamada Afghanistan in la dilay tan iyo intuu xilka qabtay. daraasada ay sameysay jaamacadda Brown University sanadkii 2019 ayaa muujinaysa in tirada ciidamada Afghanistan ee ku dhimatay tan iyo markii uu ka bilowday dagaalka ay gaarayaan in ka badan 64,000
boqolkiiba. daawade maasanid sida aad warbixintan uga bogatay fadlan sheer garee warbixintan haddii aad ka heshay commentiga nagu reeb.